السلام عليكم haddaad ku cusubtay kanaalka Nafaqa Channel fadlan taaba calaamadan subscribe-ka halkan intaas kadib wax kasta oo aanu soo dhignaa si uu kuu soo gaadho taaba calaamada gambaleelka ama challenge-ka halkan Assalaamu calaykum geedka qorfaha waa geed caraf badan ama udgoon badan oo aynu ku darsanno cuntada laakiin waxa isweydiin mudan waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo geedkan sidaa darteed maanta waxaynu halkan ku soo ururinaynaa 18 faa'iido cilmi baadhis lagu ogaaday oo qorfaha uu leeyahay sidaa darteed ka bogasho wanaagsan ugu horeyn geedkan qorfaha waxa uu wax weyn ka taraa sonkorta nooca labaad ama loo yaqaan type 2 diabetes waayo cilmi baadhis la barbar dhigay qorfaha iyo daawada ugu caansan ee macaanka loo adeegsado ee loo yaqaano metformin waxa la arkay in qorfaha uu kaga fiican yahay sonkorowga ama macaanka marka uu cusub yahay ama bilowga yahay sidaa darteed maada ku jirta qorfaha oo sonkorta dejisa waxa loo yaqaan cinnamaldehyde sidoo kale qorfaha waxa lagu daaweeyaa caabuqa cabeebka waayo saliidda qorfaha laga miiro waxa ay daawo u tahay caabuqa uu keeno jeermiska fungaska ee loo yaqaan candida iyo bakteeriyada loo yaqaan iyadana E. coli oo ah kuwa ugu badan ee haweenka u keena infectionka sidaa daraadeed caabuqa waxa uu ku dhintaa iyadoo saliidda la mariyo meelaha uu ku dhashay sida xagga hoose qorfaha waxa kaloo lagu daaweeyaa calool xanuunka waayo xanuunada ku dhaca caloosha sida thyroidka caloosha waxa cilmi baadhis lagu arkay haddii saliidda qorfaha lagu darsado shaaha inuu hoos u dhigo tarmidda jeermiska sidaasna uu alle kaaga caafin doono calool majiirka iyo shubanka qorfaha waxa kaloo lagu daaweeyaa mindhicirada kacsan oo ah xanuun lagu wareero daaweyntiisa waxayna cilmi baadhis dalka Jabaan lagu sameeyay lagu arkay in xanuunkan daaweyntiisu ay tahay qorfaha qorfaha waxa kale oo la dagaalama isla markaana ka hortag u yahay kansarka ku dhaca xiidmaha waayo qorfaha waxa uu alle ku abuuray maado loo yaqaan eugenol oo la arkay inay la dagaalanto unugyada keena kansarka loo yaqaan colon cancer waxayna dhakhaatiirtu kula taliyeen in qorfaha loo qaato ka hortagga kansarkan haddii uu qoysku hiddo u leeyahay qorfaha waxa kale oo uu daawo ka yahay lafa xanuunka waayo qorfaha waxa uu la dagaalamaa xanuunka rheumatismka haddaba haddii aad leedahay xanuun lafaha una badan kala goysyada oo mararka qaar ku barara fadlan ku subko saliidda qorfaha waayo waxay awood u leedahay inay maqaarka ka gudubto oo kala goyska ay gaadho dhinaca kale qorfuhu waa jeermis dilo awood badan waayo qorfaha waxa uu ilaahay siiyey awood jeermis dilida sida sanjabiisha iyo dhagayaraha oo kale sidaa daraadeed cilmi baaris lagu baaray awoodda jeermis dilida ee qorfaha waxa la arkay inuu qorfuhu shaqo ka qabto bakteeriyooyinka kala ah E. coli Staphylococcus aureus iyo Aspergillus oryzae iyo Penicillium waxa kaloo saliidda qorfaha jeermiska looga dilaa alaabta ay caruurtu ku ciyaaraan oo ay afka la galaan si aysan jeermis uga qaadin dhinaca kalena qorfaha waxa loo isticmaalaa xifdinta iyo ilaalinta cuntada maadaama qorfaha uu jeermiska la dagaalamana waxa loo isticmaali karaa xifdinta iyo cuntada iyadoo cuntada lagu daro ama lagu badiyo ama waraaqda ama marada cuntada lagu daboolo ayaa saliidda qorfaha lagu bilbilaa dhinaca kalena qorfaha waxa uu kordhiyaa isla markaana sare u qaadaa foojignaanta iyo xasuusta taasoo lagu arkay cilmi baadhis lagu sameeyay dad ku nool dalka Jarmalka sidaa daraadeed shaaha ku darso qorfaha marka aad wax akhrinaysid ama aad xifdinaysid idanka Ilaahay waa uu ku caawin doonaa wuxuu kaloo wax weyn ka taraa xanuunka xasuusta lumiye ee loo yaqaan Alzheimer's taasoo lagu ogaaday ilaa 3 cilmi baadhis oo lagu sameeyay wadamo kala duwan geesta kalena faa'iidooyinka qorfaha waxa kamid ah qorfaha jidhka ayuu sunta ka saaraa waayo qorfaha waxa uu kamid yahay cuntooyinka ku caan baxay sun saarista jidhka sida shaaha cagaaran oo kale sababtoo ah cilmi baadhis lagu sameeyay dalka Indiya waxa lagu arkay in sunta fadhiisata jidhka gaar ahaan xididada inuu ka hortago qorfuhu dhinaca kalena qorfaha waxa lagu daaweeyaa caabuqa cidiyaha gala waayo infectionka cidiyaha gala waxa loo adeegsadaa qorfaha oo la shiido ama maro lagu xidho ama saliidiisa oo la mariyo wuxuuna alla awood u siiyay inuu fangaska cidiyaha gala uu ka nadiifiyo
qorfaha waxa kale oo uu la dagaalamaa suuska ilkaha gala, waayo bololka ilkaha iyo caabuqa ciridkaba waa uu la dagaalamaa qorfuhu, waana sababta xanjooyinka qaar loogu soo daro qorfaha iyadoo uu afkana carfinayo iyo isagoo jeermiska suuska keena dilaya. arrintu haddaba waa dhagax laba shimbirood ku dil. dhinaca kalena qorfaha waxaa lagu dilaa cayayaanka, waayo saliidda qorfaha oo la marsado madaxa iyo jidhkaba waxay qofka ka caydhisaa cayayaanka qaar sida injirta, boodada iyo dhiqlaha iyo waxyaabaha la midka ah. qorfaha waxaa kaloo lagu daaweeyaa cuna xanuunka, waayo qufaca leh, riiraxanyada iyo cuncunka dhuunta waxaa lagu qaboojiyaa shaah qorfa leh, waxaana uu arrintaa kala mid yahay sanjabiisha. waxaa kaloo jirta sharoobo laga sameeyey qorfaha oo loo qaato qufaca xabka leh si xabku dabadda u soo baxo. dhinaca kalena qorfaha waxaa lagu daaweeyaa xanuunka caadada ee dumarka, sababtoo ah shaah qorfa leh oo la cabo ama saliidda qorfaha oo la marsado dhabarka waxa ay yareeyaan xanuunka caadada la socda. geesta kalena daawade, carruurta badanaa waxaa ku dhacda cillad loo yaqaano fudfudaydka carruurta. sidaa daraaddeed daraasad lagu sameeyey dalka Taiwan waxay ku talisay carruurta fudfudud in cunnada loogu daro qorfaha, maadaama la arkay in uu hoos u dhigo cilladan oo loo yaqaano loona soo gaabiyo ADHD. faa'iidooyinka kale qorfaha waxaa ka mid ah huurada iyo weliba af-urka ayuu yareeyaa, waayo qorfaha waxa uu la dagaalamaa bakteeriyada keenaysa huurada iyo dhagaxaanta quumanka, taasoo ka qayb qaadata in qofka afkiisa uu urta ka yareeyo. ugu dambayntii, badanaa marka laga hadlayo faa'iidooyinka qorfaha lagu arkay, waxaa la sheegay in saliiddiisu ay ka fiican tahay markii daawo ahaan loo adeegsanayo. sababtu waxay tahay in saliidda laga soo miro qorfo badan qofkana uusan awoodin inuu cuno, sidaasna faa'iido ay u xambaarsan tahay. markaa saliiddiisu way ka waxtar badan tahay markii qorfaha caadi loo isticmaalayo.